xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle iyo qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka ku dhaqan magaalada Buuhoodle oo maanta kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen ayaa waxa ay ku doorteen Carab Xasan Fadal oo loo doortay gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka degmada Buuhoodle. Gudoomiyaha la doortay ayaa waxa la tartamay musharaxiin kale waxaana cod gacantaag oo ay sameeyeen xildhibaanada kadib lagu dhawaaqay Carab Xasan Fadal waxaana uu horreelkaas ka hadlay Maxamuud Cali Faarax oo isagoo ah gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka horeyna si ku meel gaar ah u sii hayay xilka gudoomiyenimo ee golaha deegaanka. golaha deegaanku waa golo wada tashi waa golo wada shaqeeya waa gole anigu hawsha waxaan soo waday muddo ma ahayn hawsha mid anigu aan waday ma ahayn hawsha waxa waday golaha deegaanka ayaa waday iyaga ayaa ku mahadsan iyaga ayaan aad aan ugu hayaa hambalyo iyo ugu hayaa iyo maxaan ku mahadnaq ugu hayaa golaha deegaanku saan ku sheegay waa golo wada tashi waxaan markaa idinka rajaynaynaa in aad la shaqaysaan gudoomiyaha cusub iyo golaha deegaankaba oo ayana ay nasiib u yeesheen in ay maanta ka soo qayb galaan gudoomiye rasmiya oo golaha deegaanka maanta loo magacaabo oo dadka hortiisa aanu kaga ansixino ayaa maanta insha Allah hadii alla yiraahdo uu shirkani ku saabsan yahay min caamil ba maartay sawiray federaalka markaasuu intaa wuxuu u geliyay muxuu ahaa doog xagga dambana abaar buu ka dhigay inta dambana abaar buu ka dhigay wuxuu leeyahay federaalkii waa talaabsada laakiin inta yar baa u harsan waxaan maanta Buuhoodle u sheegayaa in golaha deegaanku uu talaabsaday waxaan u sameeyay xagga dhulka lagu adkeeyo waan kaga baxay hawsha aan wax wada qabanno marka meesha bariiqa la banaynayo rag iyo dumarba waa u diyaar garoobaynaa dad badan oo aan xilka shahay baa jira dad badan oo dadka ku kicinaya oo oranaya ma gurigaagii baa la duminaya oo xaasidaa jira waxaan leenahay kulligeen rag iyo dumarba aan u diyaar garowno. Dhinaca kale waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka magaalada Buuhoodle. waxaan filayaa inaynu soo gaarnay xilligii aynu u soo jeesan lahayn horumarkeena deegaan haddaynu dad kale wax la dhisi jiray waxaan filayaa inaynu ku soo waaya aragnay anigu lagama yaabo xilka aan qaaday inaan meel kale kaga gorgorto anigu waxaan ku bilaabayaa hadii alla idmo hadaan nahay haweenka guuto koobaad ee cayn gudoomiyaha iyaga iyo golaha iyaga deegaanka aad iyo aad baan u garab taaganahay waana u garab taagnaanaynaa waana la shaqaynaynaa nin baa waxa la yiri isagoo dhagax qoraya ninu jimi markaas ku wani oo maxaa dhagaxan ku fadhi oo si hadaan anigu dhameyn waayo in ilmaha igu dhameeyo irbad ka dhigtaan rabaa farxad ii ah xafladan quruxda badan ee ay soo agaasimeen golaha deegaanku ee aan kaga tashanayno hayaha iyo waxqabadka iyaga iyo deegaanka horumarintiisa baabinaya oo idinku guubaabinaya habeen iyo maalin waanu taaganahay haddaanay guuto koowaad waxaanu u taaganahay midnimada sool sanaag iyo cayn gobolada SSC waxaanu leenahay horumar iyo maxay baraare nabadgelyo isku tashi wax wada qabsi kalsooni midnimo calool fayoobi raggiinu hay isugu yimaado aad waxaan ugu mahadcelinayaa golaha deegaanka gudoomiye ku-xigeenka soo daadihinaya muddada yar iyo waxay qabteen aad baan ugu mahadcelinayaa iyo golahan sharafta leh ay maanta soo gaarsiiyeen aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan baa qabateen ilaahay idinka jazaaisiyo. Xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Buuhoodle ayaa waxay sidoo kale ballan qaadeen maalmaha soo socda ay waxqabad weyn ka geysan doonaan wadada halbowlaha ee dhex marta magaalada Buuhoodle. Cabdi Casiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Somsad Buuhoodle.